dadweynaha degmada Kamukunji ayaa maanta salaadii Jimcaha kadib waxa ay xaafadaha degmada oo isli ay kamid tahay ka sameeyeen banaanbax ballaaran oo looga cabanayay in la musuqmaasuqay codadka doorashadii isreebreebka ee xisbiga Jubilee oo arbacadii ka dhacday degmada Kamukunji taasi oo shalay la shaaciyay in uu ku guuleystay Simon Mbugwa hase ahaatee uu xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi helay codadka ugu badan ee doorashada banaanbaxayaasha oo watay sawirada xildhibaan Yuusuf iyo gawaari lagu xiray codbaahiyaal ayaa waxa ay socod ku mareen wadooyinka xaafadda Islii iyo guud ahaan degmada Kamukunji waxaana ay ku qaylinayeen in guusha uu helay xildhibaan Yuusuf oo uu yahay xildhibaanka xaqa ah Yuusuf Xasan Cabdi xildhibaanka degmada Kamukunji oo ninkii la tartamay kaga horeeyay codad ku dhow 5,000 ayaa waxa uu la hadlay taageerayaashii banaanbaxa dhigayay waxaana uu sheegay in doorashada uu ku guuleystay oo soo qaadanayo dhawaan shahaadada laga rabo shakhsiga ku soo baxa doorashada isreebreebka ee xisbiga Jubilee waxaana uu mahadceliyay guud ahaan dadweynaha ku dhaqan degmada Kamukunji gaar ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa sidii laxaad kale heelu soo baxdeen inaad maalinoyto hiil iyo hooba inaad gaashaan ii noqoteen doorashadii ka dhacday Kamukunji aniga ku guuleystay 10,000 oo qof baa soo baxday codkooda ii ridatay aad baad u mahadsantihiin waxaana niminka doonayaa xisbiga Jubilee ninkii ku guuleystay doorashadaas ee ugu tiro badnaa oo Yuusuf Xasan in la siiyo tigidhka iminka waxaan ku soconaa xarunta xisbiga Jubilee igala soo qaybgala waan hor istaagaynaa certificate-kii aan ku guuleysanana waan soo qaadayaa waxaan doonayaa si nabadgelyo ah oo xasiloonaan inaan u samayno annagu xaqeena baan rabnaaye wax ma xadi rabno annagu xaqeena rabnaaye dulum ma rabno intaasi kadib boqolaalkii qof ee banaanbaxa dhigayay ayaa socod dheer waxa ay ku tageen xarunta ugu weyn xisbiga Jubilee ee magaalada Nairobi halkaasi oo ay kaga hor qaylinayeen in Yuusuf Xasan uu yahay xildhibaanka degmada Kamukunji isla markaana uu helay codadka ugu badan ee doorashadii xisbiga Jubilee ee ka dhacday degmada Kamukunji askarta ka hortagta rabshadaha ayaa lagu soo daadiyay goobta waxaana halkaasi dadweynuhu ku sugnaanayaan ilaa inta ay ka helayaan jawaab xisbiga Jubilee sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah dadweynihii banaanbaxa dhigayay xasan sheekh cumar Home Cable TV Nairobi